والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan sii wadi doonaa cashirkeeni ku saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka waxaan qaadanaynaa suuratu naba ama suuratu cama yatasaaluun ayaa magaceeda la yidhaahdaa naba. marka naba una suuradda dhexdeedu ku yimi waa sababta loogu magac daray. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala bismi illaahi araxmaan araxiim. markaa suuraddu waa 40 aayadood ay ka kooban tahay, waxaanay ka hadli doontaa inta badan suuraddu nimcooyinka ilaahay ugu deeqay bani aadamka uu siiyey ayay ka hadli doontaa, iyo jannada iyo naarta iyo qolo kasta hadday noqdaan ahlul iimaan iyo ahlul kufri halkay ku dambeynayaan oo masiirkoodu noqonayo labadaba ayay ka hadli doontaa. aayadahaas ayaan akhri doonaa sidaynu hore u sheegnay. waxaan balan qaadnay inaynu 5 daqiiqo akhrino, laakiin waxaan ku dari doonaa 2 daqiiqo, 7 daqiiq 7 daqiiqo aynu akhri doonaa. sababtuna waxa weeye suuratulfaatixa waxay ka kooban tahay 7 aayadood. marka 7 aayadood suuratulfaatixa ka kooban tahay inagooga tusaale qaadanna insha allahu tacaala ayay waxaynu ka dhigi doonaa darsigeena 7 daqiiq 7 daqiiqo kusoo koobi doonaa. bismi illaahi raxmaani raxiim. horeynu usoo macanayna bisinka ilaahay oo ilaahay uu ku wada bilaabay qur-aanka kariimka. cama yatasaaluun, can maada yatasaaluun, maxay isweydiinayaan buu ilaahay yihi subxaana watacaala. waxaana iska warsanayaan muxuu yahay ay isweydiinayaan. macnaha maalinta yowma alqiyaama ayay rasuulka weydiiyeen xilmu dhacaya, mataa taquumu saaca ama mataa yowma alqiyaama, su-aalaha noocaas. marka ilahay wuxuu leeyahy cama yatasaaluun, maxay isweydiinayaan ma qiyaamaha. can innabai, ma waxay isweydiinayaan buu ilahay yihi annabai, warkii alcadiim weynaa oo ah qiyaamaha. ila qiyaamaha warkiis waa war weyne. ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu qiyaamuhu yahay war weyn oo maqan oo la sugayo. marka ilaahay wuxuu yihi can innabai alcadiim, ey yatasaaluuna can innabai alcadiim, ma waxay isweydiinayaan ay yatasaaluuna can innabai alcadiim, ma warka weyn bay isweydiinayaan alladii hum fiihi mukhtalifuun, kaasoo isku khilaafsan yihiin, ay ku muransan yihiin, oo qaarna dee ay beeninayaan, qaarkoodna ay rumaysan yihiin oo muslimiinta yihiin, oo dadku isku khilaafsan yihiin. kalaa sayaclamuun, way ogaan doonaan buu ilahay yihi subxaana watacaala. waxba yaanay degdegsan, warkaas way garan doonaan, waanay arki doonaan, indhahoogaanay ku arki doonaan, waanay ogaan doonaan. uma kalaa sayaclamuun, ilaahay wuxuu yihi mar labaad baan ku celiyey waan sii adkeynaya hadalkayga. sayaclamuun, way ogaan doonaan. ha iska dhaafaan muranka iyo khilaafka iyo su-aal xumada, ha iska daayaan buu ilaahay leeyahy intaanu qiyaamuhu iman oonu qiyaamuhu dhicin. alam najcal ilarda mihaada, dhulka miyaanaan ka dhigin mid goglan si dadku ugu shaqaystaan oy ugu noolaadaan oy wax ugu beertaan. ayuu ilaahay dhulka inoo gogolay oo dhibaato kalama kulanno. waljibaala awtaada, buurahana ilaahay wuxuu inooga dhigay masaabiir adkeynaya, dhidibo dhulka adkeynaya. buuruhu marka waxa la yidhi dhulka way hayaan lianlaa yataxarak, si aanu dhaqdhaqaaqin, si aanu u ruxmin dhulku. ilaa hadduu maanta ruxmi lahaa dhulka ciidakumay dul noolaateen. sikinka yar ee uu dhulgariir ku dhaco adiga arkay inta malaayiina qof inta qof ay ku dhintaan idinka arkay. markaasoo maalin walba dhulgariir dhici lahaa ka warama kayf sayakuunu alxaal, xaalkusoo noqon lahaa. wakhalaqnaakum, waxaan idinka abuurnay aswaajan, noocyo kala duwan, anwaacan kala duwan, ama lab iyo dhadig oo kala duwan baan idinka abuurnay si aad isku buuxisaan ood isku caawisaan. wajacalnaa nawmakum subaatan, hurdadiinana waxaanu ka dhignay mid aad ku nasataan. wajacalna alleyla, habeenkina waxaan idinka dhignay libaasan, mid aad ku maaragtay asturnaataan ood seexataan. wajacalna nahara, maalintiina waxaan idinka dhignay macaashan, mid aad maciishadiina iyo quutu daruuriga aad raadsataan. wabanaynaa fawqakum, korkiina waxaanu ka taagnay buu ilahay 7 samo shidaadan adag. wajacalnaa, waxaanu ka dhignay qoraxdiina siraajan, mid iftiimaysa, wahaajan oo werweraysa, oo aad macnaha
ku shaqaysataan maalintii oo idin iftiintaan idinka dhignay wallahu subxaana wa tacaala